السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرم فاتوش فاميلي السودوال وولاشن فاتوش channel كداونيسين وفاتوش فاميلي ما شاء الله معنا عصب واي الحمد لله رب العالمين هذا بقى سيداد لسعتين وابديت كيني ابديت كاسو ميلا بدن تابن دونا إن شاء الله كوسابسن waxaan faahfaahin doonaa package cusub oo laga yaabo in la soo saaro muxuu yahay package kaas maxaa lagu bixin doonaa waxyaabahaas oo dhan baan kala hadli doonaa sidoo kale عاوجال تكسي كريدت كحقو كبحي بيلد باك بير المدعيات بدن با waxaanayna oo dadka su'aal ay ka qabaan iyo waxaan ka hadlayaa madaxweynaha oo ka hadlay Biden January wixii dhacay waxa uu ka yiri January hore waaya sanad baa laga jooga maanta waa taariikh 6 hore wixii dhacay markii asaga xilka lagu wareejinay finally Biden ay 1 year u tahay marka warbixinadaas dhan baa in ka daba geyn doona hadii Ilaahay idmo hadii channelkeena ku cusub tahay inoo soo dhawow subscribe saar hadii aad ka heshay waxyaabaha aan community-ga la wadaago fadlan adigana subscribe noo saar like iyo share tan ku badi hadii Ilaahay idmo sidoo kale hadda hore nala joogta subscribe saar ma sha Allah suurka dhag ka siiya thank you ku mahadsantiin markaas saa ay taageertiin haday ahaan leed YouTube-kayga haday ahaan aniga shakhsi ahaan haday ahaan leed business-kayga inta qof dadka igu taageera aad baad mahadsantiin السلام عليكم كسر دواد فاتوش فاميلي ما شاء الله وحاي ما دهي عاد قروح بدن وحاد كهلي كرتا ستور كنا اونلاين كتلافن كنا صوع اما سناب شات كيغلا هذا sidoo kale waxaa imaada gooyaashii sariiraha iyo miiska qadada alaabtii la saarayay shibna waan sameynaa insha Allah sida ogsoontiin nigis cusub baa soo baxay waxaa sheegay in White House ka especially only hal xisbi maahan both labada xisbiba dimuqraadiga iyo republican-kaba inay ka hadlayaan package cusub oo la soo saarayo waa isweydiin doontii waxay sidii doontii package-ka hore lama dhameeyna maxay tahay midka cusub ee laga hadlayaa number 1 kii hore waxa watay Biden bis baa wateen wuu ka horeeyay coronavirus-kan especially Omicron-ka republican-ka ma ay taageersana lama kuma aysan jirin wax ganacsiyada iyo lagu caawinayo guud ahaan business-ka marka aysan ku jirinin republican-ka iskama taageeri karaan oo wuxuu ahaa mid ay xisbi kaliya wata oo house-ku markuu ka soo baxay ka soo baasay only hal xisbi ayaa soo baaskaray marka laakiin markii reality-ga la garo oo reality-ga yaani waxa laga hadlayaa runta markii la tago markeen uu imaado xanuun ama sida hadda coronavirus waagu bilaabanayay first stimulus check waxa isla baasgareeyay dimuqraadi republican second stimulus check waxa isla baasgareeyay dimuqraadi republican labadoodaba inkastoo third stimulus check madaxweynahan kaligiis uu baasgareeyay because republican waxay dhahayeen looma baahna oo coronahii waa laga soo bogsanayaa kada lacagta wadanka ha gelinina sidoo kale waxa jirtay kuwo aadan adigu arki jirinin oo behind the doors or behind the scene lagu sameeyay oo inaan arki jirinin oo la approve gareeyo markii la xisaabiyo waxa la yiri third stimulus check markii laga soo bilaabo kii waxa uu 400 qaadanay kii lixaad buu ahaa meaning adigu waxa ogaan jirtay midka dadka kale lacagta la siinayo laakiin markuu wadanka ku dhacay corona uu dhacay waxa jira package kale oo la baas gareenayo ama ganacsiga lagu taageerayo ama siyaabo kale wadanka loo gelinayo laakiin inaan ogeyn oo ay la baas gareeyo soo saddex markay taa saddex kale oo aad ogeyn baa jirta markuu kii lixaad yahay marka sidaas ayaa kan package-kan build back better la dhaho only dimuqraadi ay u tahay laakiin markuu wadanka 50 state-ka uu qabsado Omicron isbitaaladii ay buux dhaafaan sidoo kale dadkii ay wada jiradaan diyaaradaha ay falaydyo badan kansalaan iskuulada qaarkood la xiro yacni waxay noqonaysaa labada xisbiba wax taabanaya oo ma aha wax la dhahay adigu madaxweyne adiga ah kaligaa samee waa wax dhahaya hawshan way noo wada taala aan sameeyno marka hadda maanta ay soo baxday in ay ka wada hadlayaan wali public laga ma dhigin package ka wada hadlayaan package kaas sirti ka soo baxday waxay ahayd in package ka lagu taageerayo yani corona lagu taageerayo waaya corona in looga baxo Omicron-ka soo wuxuu noqonayaa waxa ku jiri doona lagu yiri business-ka ganacsiyada especially hadday ahaan la restaurant-yada waxa ku jiri doona la yiri like anything like dadka ciyaara ama meelaha performance-ga laga sameeyo ama anywhere wax yarta ahaato على حال كاسبة هيرلاين وحال لقول هاي ونقن دونا especially كنا عسيادة سو لكن استمر استجنا ولا قصة در دونا ولا قصة در كرا
midda kale waxaa jirto kale maadaama program uu socday ahaa child tax credit oo ayakana maybe ay tixgelin karaan hadday rabaan ay dhihi karaan packagekan ku darnaa ku boobsiinaa si maadaama familiyadii hadda ay waqtigii oo de coronavirus uu yahay socdo dad badan shaqooyinka fariisan ilmihii iskuullada qaar ka fariisanaya oo iskuulla badan hadda waxaan arkay dad channelkii ka comment gareynaya dhahay magaaladeena Fatuusha iskuulku uu ka xiran online baan ku dhiganaa jaamacadii wixii dhan online baa loo bedelay oo hadda wax aad galaasay male because saas markay tabaan waa dangerous serious waay because waxa uu leeyahay xanuunka aad u soo badanaya dadka aad u jiifanaya marka package-kaas waxaan sugnaaba waa warbixintiisa maxaa kale ka soo baxay waxa kale ka soo baxay in new funding laba nooc ay uga wada hadlayaan in lacag cusub loo soo saaro oo lacag cusub labadooda isla baas gareeyaan iyo sidoo kale in la isticmaalo lacagii hore oo yaalay because intii package soo baxday oo hadduu ahaan la 1 hadduu ahaan la 2 hadduu ahaan la 3 waxaa jirta lacaga aan la isbeen garaynin oo taala oo aan la isticmaalin taasna in la isticmaalo oo package-kan loo isticmaalo so for stimulus check ku jiri doona su'aasha calaamad su'aal ayaa wali noo saaran waxa calaamad su'aalkaas uu ka bixi doonaa markii package-ka la soo bandhiga waxay tahay still hadii la soo bandhiga xataa marba marka dambe lagu daraa laakiin new package is on the way wuxuu noqon doonaba war jiraaba uu soo socdaa uu imaanaya sidoo kale build back bear lagama samri wali waa laga shaqeynayaa waa asagana hawshiisu waa just dimuqraadiga marka hadda ba New York laga soo noqday asagana warbixin uu ka soo bixi doonta hadii ilaahay sidoo kale madaxweynaha ayaa maanta wuxuu istaagay meeshii laga sameeyay qalalaasaha isagoo la hadlaya dad la hadlaya dadka yani wadanka bano marka wuxuu ka hadlay wixii dhacay January 6 cidii xasuusata markii ay rabeen in ay sanadka ay approve gareeyaan in madaxweyne uu yahay Biden sanadkaas oo ahaa dimuqraadi iyo republican 100 kooda kulligood ayagoo isku wada raacsan inay qaarkood maybe ka soo horjeedo way jirtaa laakiin majority dadka ilaahay maskaxda u dhiibay in ay ka wada hadlayeen in madaxweynaha la approve gareeyo yani oo la ogolaado in madaxweynaha saxda ay ku guuleystay uu yahay ayaa waxa dhacday maantii ka horeysay ee madaxweynaha ayaa hadlay wuxuu yiri isla subaxdii bebe go show codkaaga tusa يعني wuxuu u baas gareeyay amal oo kale yeysan approve kareen meeshii lagu jiray dagaal baa dhacay banaanka waa la jabsaday gudaha loo gaday cidii xasuusata burbur badan baa ka dhacay madaxweynaha cabaar uu fiirsaday dad baa ku dhintay sanadka xataa laftirkooda xoog iyo qasab baa lagu la baxay house waa la qaxay adi meeshii waa laga kala qaxay waxay noqotay wax yar bay waxay noqotay meel waxaan markaan daawanayno waxa ay waxa isku bedeli rabnaa wadankan joogna dawlad la'aan isku bedeli doonaa maadaama meeshii de madaxweynaha laga soo hadlayay garmaantii waxa ay qabatay ani xataa maskaxdeeda waxaan ku dhawaad wax xukumi doona haday kuwaan caawa dhan meesha ku fadhiyaan kadib wadan sharci la waa military la dalbaday madaxweynaha wuxuu rabay runta hadii laga hadlo inuu afgembi ku qabsado waa markii ugu horeysay ka dhacday meesha in afgembi lagu qabsado waa sheeko waalan bay ahayd wuxuu yiri powerka lagu wareejin karo ana madaxweyne ah lamana sameyn karo ay waxay county gareynayeen yani steediyadii wixii ay mid kasta wuxuu kaga dhawaaqay meesha inuu Biden madaxweyne yahay calaay taxal dad badan la xirxir war badan ka dhac madaxweynaha maanta wuxuu aad iyo aad u cambaareeyay oo madaxa kaga dhiga Biden Donald Trump in uu ahaa in uu kaliya taliya noqdo in wadanka qabsado in uu dadka codkooda ay kaga sarmartay yani asaga dantiisa bistadanka wadanka marka asaguna wuxuu yiri aniga fair election baan ogolahay wuxuu tiri madaxweynayaashii hore wixii ay sameyn jireen hebel wuxuu sameeyay hebel wuxuu suggest republican sidoo kale waxa ay markuu hadalkiisa dhameystay madaxweynihii hore Trump wuxuu lahaa asaguna speech meel buu ka balansanaa uu cancel baaliyay soo waa dareemi kartaa wuxuu cancelay ceeb in aad waxaas lagu soo eedaynayo si aan islahay waay waxaas lagu soo eedaynayo in aad inta meel istaagtay aad hadashid it's very shameful soo marka waxa waay de wixii qof uu go'aansan lahaa ugu fiicnaa waa inuu iska aamuso yani maantaas uu cancel because he knows inuu madaxweynaha Biden baxo inuu rib karayna wuxuu soo saaray asaguna hadal buu soo saaray uu leeyahay markuu halkiisana fail gareeyay oo ku dhacay oo waxba qaban waayay ayuu show off sameynaya yani waa just istustus waay amal
marka wixii uu qaban way ku duugaya oo dhan ninka ma haraayo marka kulley waa ka saade fikradaada waxa waay waa muhiim waxa waay kana saanu dhaha kana haddu hal sano haystaa waxa waay dadka midkii u roon ay ka garanayaan laakiin waxay ahayd wax mess ano maanta markuu asaguna rifay asaguna qaal soo saaray uu ku rifay asaguna ma fahamsan kuwaas wuxuu rabaa 4 sano hadhow markii loo waxaynaya inkastoo ay tahay wax xun inuu mar labaad doorasho soo galo because adoo maanta baxaysay ku baxday waxa ogaa dhiig ku baxday inaad dib dadka kuu soo dooranayo that's another level waa aqli kale qof kale haduu noqdo la siiyo wadankan awlba waa la shir garin jiray powerka muddo qabaar markuu republican haya dimuqraadiga ugu baan xagga markuu hay waa la aqoon jiray laakiin aniga tal ahaanteeda hatta hadii kan laga qaaday ma dhihi leen adiga soo noqo iska joogan ku dhiila adeer sarahaaga dheer ma kuugu qorqoran iska shaqayso marka insha Allah package kan cusub anaka dan nooca newska dhan waa dad badan baa xiiseeyay newsada in la soo wada koobo way fiican tahay new stimulus check ayna asxaabtayda waxay dhaheen fatuush marka aragno waxaan soo xasuusana man insha Allah package cusub ban hadda ka soo rabi doona insha Allah markuu war fiican ka soo baxo wixii ku jiri doona waxa yacni insha Allah markasta waxaan leenahay coronavirus please or naga tag package-na marna lacagna marna please naga tagadaan nooga darnaa arigeena iska shaqaysan aad bad uma sinteen asxaabtayda taleefankayga meeshaas buu ku qoran waa taleefanka businesska only business baa loo soo waca wax kale looma soo waco haddii aad wax su'aala qabtid barnaamijka aad ka qabtid commentiga hoos ku reeb anigu waan soo aqriyaa markaas baan ka soo jawaabayaa haddii lahaydmo haddii aad rabtid inaad alaabtayda online-ka aad dalbatid fadlan taleefanka soo wac ama snapchat-ka igala hadal haddii lahaydmo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu